kulankani lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ayaa waxa looga hadlayay arrimaha saadaasha hawada Soomaaliya oo ku aadan sidii maamulka hawada Soomaaliya oo muddo dhowr iyo 20 sano laga hagayay dalkani Kenya loogu wareejin lahaa gacanta dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana dib Soomaaliya loogu celin lahaa shaqaalaha Soomaaliyeed ee muddadaasi ka howlgalayay xarunta oo aan helin xuquuqdii ay lahaayeen. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda maamusha saadaasha hawada ee KAW, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka duulista hawada Xirsi Aadan Rooble, safiirka Soomaaliya ee dalkani Kenya, guddiga baarlamaanka u qaabilsan duulista hawada iyo xubno kale. safiirka Soomaaliya ee dalkani Kenya Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa markii uu soo gabagabay kulanka waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ay kala hadleen mas'uuliyiinta hay'adda gacanta ku haysa maamulka hawada Soomaaliya ee KAW. la socotaan laba maalmood ay halka ka socday shir KAW seminar ku bixinaysay ku saabsan hawada Soomaaliya sidii maamulkeeda iyo maareynteeda iyo shaqaalaha wadanka Soomaalida ka shaqeeya halkan. shirkii maanta dhamaaday waxaa noo muuqday meeshan waxa ka soo baxay dhowr waxyaalood. Number 1, Soomaalida halkan joogta ee la keenay waa Soomaali sharci darro lagu keenay, ardaynimo lagu keenay oo 20 sano ugu dambeeyay ka shaqeynaya Kenya iyagoon sharci lahayn, wax xuquuq lahayn, lacag fiican la siin, nolol fiican ku haysan. intaas waxa uu si dheer hawadii Soomaaliya in halkan lagu hayo Nairobi oo hay'ad KAW la yiraahdo project face la yiraahdo oo Nairobi ka furan yahay kaas oo qaranimada iyo Soomaalinimada iyo dawladnimada wax meel ka dhac ku ah. wala shirna madaxdii ka timi Montreal KAW madaxdu ahayd mashruucan qaabilsaneed oo aanu sheegnay inaan happy ku ahayn inaan ku faraxsanayn inaan sharci darrada in Soomaalida wadankooda laga keeno oo lagu shaqeysto oo xuquuqdooda la ixtiraamin. hawada Soomaaliya in 2016 oo ku jirna maanta lagu hayo wadan kale aan darisnahay laga maamulo aan wax Allah wax ka socdo warkayn arintaas aan kala hadalay waxaan u sheegnay si uu dhaqsaha badan loo soo wareejiyo xafiiskan loogu wareejiyo xamar shaqaalaha Soomaalida shaqaalaha kale ka shaqeynaya Soomaaliya u wareegan shaqadan halka ka socoto hadii ay taadiidaan macnaheedu waxa weeye in hawada Soomaaliya oo qaranimada Soomaaliya qayb kamid ah in hay'adan haysato in diidayna soo wareejiyaan hadda waa noo sharaxeen wax hortaagan oo weyn ma jiro waxaan u baahanahay kaliya in ay soo guuraan soo dhaqso badan oo soo guuraan Soomaaliya soo degan. dawladda Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa ay dadaal dheeri ah ugu jirtay sidii dib gacanta dawladda loogu soo celin lahaa maamulka saadaasha hawada Soomaaliya oo muddo dhowr iyo 20 sano ay gacanta ku haysay hay'adda KAW isla markaana laga maamulayay dalkani Kenya. Cabdulqaadir Ali Xuseen Koronto, warbaahinta qaranka magaalada Nairobi.